asalaamullahi calaykum halkan naga daawanaysiin waa wanaagga qoyska alla ugu bartay markii ugu dambeeyey waxaa saaka maxkamad lasoo saaray madaxweynaha tiktoga oo caanka ee dhankaasi muqdisho bilaal bulshaabi. dhanka kale maxkamadda ayaa waxay sheegtay in bilaal bulshaabi si degdeg ah looga saaro dhankaasi hargeysa loona tarxiilo magaalada uu kasoo jeeday muqdisho. maxkamadda ayaa waxay u qabatay 24 saac gudahood in lagu tarxiilo diyaaradna lagu saaro bilaal bulshaabi maadaama uu u gafay qarannimada somalilan. waa kan wariyaheyna xasan bii waaye oo warbixin noogu soo diyaariyey. madaxweynaha tiktoga si kala u taqaantiid bilaal bulshaawi ayaa laga soo tarxiilayaa deegaanada somalilan iyadoona saacadahaas u aadan magaalada muqdisho u imaan doono. maxkamadda gobolka maroodijeex ayaa ku amartay in 24 saac gudahooda uu iskaga baxo deegaanada ama jamhuuriyadda somalilan. bilaal ayaa ku xirnaa dalka idhaahdee magaaladaasi hargeysa 60kii cishay u dambeeyey asagoona sababsaday koob shaaha uu ku cabaayey baqaayada jumayra ee magaaladaasi hargeysa. bilaal ayaa waxaa adeer u ah nin ka mid ah dadka somalilan ay aada ku qadariyaan haatanna madaxiisa lagu sii dayn doono oo ahaa ninkii dayaaradii la yiri ku duqay magaalada hargeysa ka dejiyay jabuuti kadibna iskaga cararay soomaaliya 1988. ninkaasi oo habeenada ka mid ah iyo wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan ee amniga maxamed kaahin oo meesha hidaha iyo dhaqanka su-aal lagu weydiinaya ayaa waxaa laga codsaday maxamed kaahin inuu sii daayo bilaal bulshaawi oo adeer u ah ayraahday uu adeer u yahay ninkii ka badbaadiyey somalilan in dad badani ay ka dhintaan oo la yiri duqay magaalada hargeysa kadibna diyaaradda ka dejiyey magaaladaasi jabuuti. maxamed kaahin wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan ayaa sidoo kale ballan qaaday in maalmaha soo socda la sii dayn doono iyadoona balankiisii u muuqdo inuu fulay dhowr beri kadib markii xafladaasi habeenkii ay ka dhaceysay magaalada hargeysa. bilaal bulshaawi sababta loo xiray ayay ahayd in koob shaaha uu ku subsaday calanka soomaaliya oo laga necab yahay ama aan laga ogoleen gebi ahaantiisba deegaanada ama jamhuuriyadda somalilan. calankaas ayuu bilaal bulshaawi soo dhigay bartiisa tiktoga isagoona ah dadka ugu caansan ee soomaalida barta ama aalada loo yaqaano tiktoga. bilaal ayaa koobkii shaahiisa wuxuu u sababay inuu 60 beri wax ku dhow u ku xirnaado xabsiga magaalada hargeysa. ugu dambeyn saacadaha soo socda ayaa la filayaa inuu soo aado magaalada muqdisho iyadoona maxkamaddu ay amartay in 24 saac gudahooda uu iskaga baxo magaalada. sidee u aragtaa sii deysmada bilaal bulshaawi? somalilan ma ku saxan tahay qofkii qawaaniinteeda jabiyaa inay xabsiga u taxawdo mase ma ku saxan tahay in qof calanka soomaaliya ku dhex xirtay magaalada hargeysa in xabsiga loo taxaabo? bilaal bulshaawi ma ku qaldan yahay in asagoosan ka fiirsan qadiyadda iyo dadka ula joogo oo waxyaabaha qaar aan laga ogoleen deegaankaasi uu ku xadgudbo sharcigooda?